warwaa salaamay waxaan daawaday muuqaal laga soo duubay dhalinyaro joogto magaalada Xeraale oo ugaarta ama sagaarada bahasha la yiraahdo intay ka dileen 30 xabo vlog ka sameynaya hadalkiisa marka waxa ku jira ninka dhalinyarada hadlay wuxuu leeyahay caawa follow iyo like ta aad noo siiyay buu leeyahay waxaan caawa soo samaysanay sagaaraysi waxaan soo dilnay 20 xabo sagaar ah waa 24 xabo baan malayna ahayd waa kuwana marka ayuu ulsa ugu dhigdhigan tira badan buu soo dhigaya markaas la fiiqaya san qiyaasi waa 3 wiil waxa waay mid doobayo mid darawal ah iyo mid kaan hadlayo oo filay inuu yahay ninka vlog iska sameynayay qisdiga sagaarada loo digay ma ahayn in la gaajaysan yahay mana ahayn in daroofi jirto waxay ahayd in views laga helo views kale yaa laga helayaa marka waxa laga helayaa dadka TikTok iyo Facebook iyo meelaha ku jiro oo laftirkoodu qayb ka ah wax walba oo fool xun inay dhiiri geliyaan waxyaabo cajiibka waxa waaye su'aal ba isweydiiyay marka war dadkan aan ku dhex nool lahay ee dalka nala jooga Soomaaliya ma bil aadan ba mise bil aadan ma sidee ugu fikri kartaa in muuqaal ka duubtay 30 noole oo baadiyaha duurka ku nool oo koronto biyo adeeg ka cabir raashin aadan siinin risaaqada ilaahay qabo ina faajo u soo leeysi baahi adan ku xinin culays kale ku haystay u sii jirin si ugu fikri kartaa sideese inta sameysay dadka deegaanka joogay oo dhan ay kuugu daawan karaan qosol oo arki karaan waxa jira raw material waxa waaye bahalkani shaladani waa intaysan shallan noqonin oo faa'iido yeelanin raw material wax la dhahay caaga soo shiilanu jiray birtaan ayadoo isku dhigdhigano meel taal jirtay marka lama isticmaali karo wax faa'iido ama leh mi fahmi laakiin markii raw materialka laga saaray caagi waa la jarjaray noocan laga sameeyay in birtii la jarjaray noocan laga sameeyay wada isdhexgalgeliyay maxay yeelantay faa'iido yeelantay shaqay ku qaybtay oo inaad timaha ku shalaysatid hadii ilaahay ku imaayo asaa u shalaysatid waxa ula jeedaa dadka Soomaalidu waxba waraabaha inta badan kama duwanaa sababtoo bila aadantinimadu waxay waraabaha kaga duwan tahay inaysan raw material ahayn inaad bila aadan tahay garasho leedahay waxa mudan in la dilo iyo waxaan mudnayn in la dilo inay taqaanid oo baahida aad maanta nolol kale oo duurjooga u dili kartid ay tahay mid adii naftaada aad badbaadinaysid hadaysan jirin inaad deysid sagaarooyinkaas la dilay waxa laga yaabaa 10 kamid ah in afar ciyaal oo yar korsanayeen sagaaro kala ku yar ka wara saameynta ku yeelatay macnaha noloshu way wada xiriirtaa dhaqanka rimiga ee hore marka baartid dadku waxay lahayn jireen boqol waxay lahayn jireen 200 300 400 waxa jir wax la yiraahdo kadin geel dadkii geela badnaa waxay laayeen libaax baa la dhigi jiray duurka la joogi jiray libaaxi baa dhamaaday libaaxi markuu dhamaaday kadib dhurwaagi bay laayeen dhurwaagi ma dhamaaday geeli ma ka dambeeyay maanta biilis qof 100 neef geel haysto meelis ka wada la tasoo dan halaad haysta sabab noloshu way wada xiriirtaa web of life baa la midba ku dul xiran hadda duur joogto baadiyaha joogta waxay laayaan dawacada la laayo waxa la yaraaday arigi qof 500 neef haysto meelis maanta waagi horena ku neef waxa dhigi jiray geela kadin waxay ahayd wax yar arigana tiro wax yar bay maanta 100 neef qof haysto meelis ka badan qofka 100 haysto 200 caleey xoolo badan buu leeyahay maxaa wax la fahmo noolayaashu way isku dul xiran yihiin hadii libaax iyo dhuwaal la geeli baa la dhintay iyo loodi dawaco hadda la laynayo waxa la dhimanaya arigi sagaarada oo la laynayo waxa la dhiman doono dhirtii yareedo dhan noloshu isku xiriirtaa bulshadeeni waxay noqotay bulsho fiik ah bulsho distraction kaliya ka shaqeyso dad u dabaaldego dagaalada rabshada xasuuqa dilka kufsiga ugaaraysiga faajada ah baa noqon waxa kalifay dadka social media ku jiro oo noqday dad yani dad nolosha dad ka dhacsan u badan qof raadinaya wax xun inuu daawado like follow comment iyo wax fiican ba aysan ku soconaynin ana problemyadii badnaa ee dalka ka jiray baa dadka moral u saameeyay waxa jira wax la yiraahdo concept ama fahm waxa ku xigo thoughts fikir waxa ku xigo action ficil waxa ku xigo gadan result macnaha dadkeena fikirkii qaldamay aragtidii baa qaldantay leeyahay qofkii wax uu ka arkaa wax fiican ba ma arko waxa ku xigsanaa fikirkii baa qaldamay wax xun buu ka fakaraa dan ficilkii baa qaldamay oo comment like wax xun buu comment like iyo dooda ka wada resultigi baa xumaato wadankan saan oo burburka oo qabyaalada eexda musuqa tuugaysiga caadadii hidii dhaqanku u yahay baan ku helay waxa soo bedeli karnaa su'aashaas ku weydiiyay ka jawaabi kartaa